xarunta agoonta gabdhaha ee degmada Boondheere oo lagu xanaaneeyo 430 gabdhood oo isugu jira caruur agoon ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysas danyar ah ayaa waxa caawa loo sameeyay kulan afur ah oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu safiir ku-xigeenka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya maamulka degmada madax ka socotay hay'adda Bisha Cas Turkiga iyo mas'uuliyiin kale ujeedka kulankani afurka ah ayaa ahaa mid lagu maamuusay maalinta agoonta adduunka oo sanad kaste xilligan oo kale caalamka laga xuso iyadoo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo safaaradda Turkiga ay balan qaadeen in ay diyaar u yihiin dhiirigelinta iyo garab istaagga caruurta Soomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar si ay u helaan daryeelkii ay mudnaayeen safiir ku-xigeenka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Masar Ali Jaan ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay ka go'an tahay horumarinta nolosha caruurta Soomaaliyeed. Since 2011 we have launched the biggest humanitarian campaign, but what distinguishes Turkish Red Crescent is that they have blended humanitarian aid with development aid. So we are focusing on short-term emergency needs while our eyes on the horizon. So I would like to express our appreciation and thanks to His Excellency Mr. Yarisov, Mayor of Mogadishu. He has been a great friend of our embassy and he's doing a fantastic job. And we firmly believe that Mogadishu will reclaim its glorious past under the leadership of His Excellency Mr. Yarisov. Thank you very much. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa ugu mahadceliyay dawladda aynu walaalaha nahay dalka Turkiga sida hagar la'aanta oo ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan ugu mahadcelinaynaa Turkiga iyo Bisha Cas ee Turkiga sida mar walba 2011 ilaa hadda ay Soomaaliya ula garab taagan yihiin taageero waliba dhab ah oo walaaltinimo ah oo hiili hoo ah intaas waxa sii dheer waxay kala balan qaadeen afurintii 2000 ee qof bisha barakeysan Ramadaan waxa uu sii dheer in haddana ay maalinta ciid rabaan inay ka farxiyaan oo ay qalaan 600 oo neef magaalada Muqdisho kaliya wadanka oo dhanna ay ilaa iyo 1500 oo neef inay ka qalaan oo ujeedadeedu tahay in shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo inay gaaraan marka taasna annaga waxayna sii gelinaysaa yidiilo iyo dhiiranaan mar kale waxaan u mahadcelinayaa safiir ku-xigeenka Ali Jaan iyo mas'uuliyiinta Bisha Cas Turkiga oo runtii caawa nala jooga. Nuur Saciid Taaliid warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.